ugu jira wariyahayaga Mahad Maxamed Cabdiraxmaan Mutabakil mahado waxaad sharaxaad naga siisaa waxyaabihii soo kordhay waxaa la filayaa in goordhow laga ama bixiyo gudaha isbitaalka Digfaar haddana loo yaqaan Urdugan oo aan ku suganahay daawaca gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso gaadiidkii ambalaasta ayaa halkan taagan sidoo kale waxaa la filayaa goordhow in halkan ay soo gaaraan guddigii xalay uu magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar dadka la qaadayo inkastoo si rasmi ahay guud ahaan tiradooda aan lagu shaacin haddana gudaha qaybta gargaarka degdega oo haalgalay waxa ay weli hakad ku jira qolihii dadka in loo fasaxa gudaha ahayd balse waxaa la xaqiijiyey in la qaadayo dad ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada Wardhigley iyo agaasimo waaxidiyo oo iyagana dhaawacyadoodu ay qaarkood yihiin kuwa hadda u baahan in baxnaano caafimaad oo dalka dibadda loo qaado gudaha isbitaalka warka qaar aan ka maqlo oo saaxiibo shaqo oo ahaa gobolka Banaadir dadka shaqeynaya qaarkood waxay xaqiijiyeen in haddaba garoonka Muqdisho ay joogto diyaaradii qaadi lahayd bahda caafimaadka ayaa diyaarinaysa hadda qoraallo kala duwan iyo weliba soo ama bixin waxaa sid mudan in qayb gaar ah ay ku jiraan xubnaha dhaawaca ee hadda in la filayo in saacado kadib la qaado balse mas'uuliyiintii iyo guddiga xalay la magacaabay qaarkood ayaa la sugayaa dhinaca kale marxuumiintii ku geeriyooda qaraxa badi inta ay yaalaan oo qaybta meedka oo aan tegey inkastoo rasmi lagu fasaxin haddana waxaa la ii sheegay qaarkood in eheladooda saaka gebi ahaan loo soo fasaxay in gudaha ay soo galaan ay siyaabo kala duwan ula baxayaan inkastoo hadda weli war rasmi aan laga haynin oo maamulka gobolka Banaadir xubno ka tirsan ay ku yiri in hal meel lagu wada aasi doono iyo in kale iyadana caddeyn rasmi ah weli keenin faadamo wixii kale soo kordha dhageystayaasha ayaa lagu soo socodin doonaa balse weli lama qaadin gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo xubnaha kale dhaawacyadooda la filayo goordhow in la qaado waa tahay aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu